ururka soo ah ururka shaqeeya daryeelka xayawaanka iyo sidoo kale bulshada ayaa ah ururka howlgala dhammaanba gobolada Soomaaliland. Haddaba qaybtiisa magaalada Burco bishiiba hal mar wacyigelin ka bilowda dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Burco ayaa saaka wacyigelin toos ah ka bilowday dugsiyada Togdheer iyo sidoo kale Maxamuud Axmed Cali. Haddaba ugu horreynba waxaa dalka bilaabay Dr. Cali oo ah gudoomiyaha daryeelka xayawaanka ee soos qaybtiisa magaalada Burco iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyadaasi ayaa waxay mid u wacyigeliyeen fasalada dugsiyadaasi waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda daryeelka xayawaanka. haddaba iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladoodii sida tan waxaa looga jeedaa dareer macnaha looga jeedo maanta halka sawirka laynuu keenaya muxuu yahay macnaheedu waxa weeye inaynu ka feejignaano dhibaatada iyo waxyaalaha loo geysto xoolaha nool ee uu ka mid yahay dameerku sidaynu ognahay dameerku wuxuu noqday ama uu yahayba qayb wax soo saar oo rag baan wax kaleba ku ceeshin ama guryahooda bay ku nool yihiin maxay masaarifa ka helaan dameer xaaba ku dooya tiirar ku dooya biyo ku dhaamiya magaalada Hargeysa dameerta wax biyo sidaba oo dameero xayawaanku de waxa weeye imika waxa jira isagoo iskuulku wuxuu leeyahay bisadaha kala wadka ku ciyaarada shimbiraha xamaamka oo kale iskuulka wadka ku ciyaara maalin wada shimbiraha halka isku wada haysateen oo kale way jirtay xayawaankaas oo kale waxa kamid ah inaydan ku ciyaarin xayawaanka de iskuulka ama eegaarkiisa ama xaydaankiisa ku xeeran oo kale sida inoo sheegay inaydan ku ciyaarin inaydan ay dameeraha imka marka iskuulka soo hormaraan oo kale inaydan ku ciyaarin sidan deedka waana mar walba la idinka waaniyay waxa tihiin arday yar yar oo la soo barbaarinaya imka fasalkii labaadna waa ku jirtaan waxa la idinka baahan yahay sida la imka la inoo sheegay inaad ilaalisaan xayawaanka inala nool sida dameeraha imka dameeraha kale waxaad arkaysaa qaar eriyanaya imka waxa jira geel marka waqtiyada magaalada jooga waxaad arkaysaa qaar eriyanaya waxyaabahaas oo kale oo dhan la inoogama baahna gaar xayawaanka marka la ilaaliyo xuquuqda xayawaanka ayaa loo baahan in la ilaaliyo haddii la ku dhigo ku wacyigelinayna daryeelka xayawaanka in ay ilaalisaan waxay iska bedelaan ila marka la idila hadlo soo isbedelaan maaha bal marka horena waan idinku nimaan maanaysan sanad hore marka waxaan ururkayga waxa la yiraahdaa ururka daryeelka xayawaanka burcana waan degaynaa waxaan doonaynaa in dad volunteer mutadawiciina oo shaqada nala qabta oo dadka nala wacyigeliya oo xuquuqda xayawaanka dadka bara baa loo baahan yahay diyaar mootiin ururka la yiraahdo soos oo marka la soo ah ururka daryeelka xayawaanka iyo bulshada waa urur maxalli ah oo samafala waa urur ka howlgala dhammaan gobolada Soomaaliland fadhigiisuna yahay caasimadda Hargeysa waxa ururku labadii sanadood ugu dambeeyay ka shaqeynayay degmada Burco iyo nawaaxigeeda ujeedada weyn waxay ahayd dadka si lagu wacyigelin lahaa daryeelka xayawaanka khaasatan dameeraha lagu shaqeysto ururku waxa uu ka howlgalay isagoo oo kaashanaya ururka partnerka la ee la yiraahdo Dom Sanctuary ayaa waxaanu fulinay in aanu ardayda iskuulada ka wacyigelino in iskuulada ardaydaasi ay daryeelka inay ilaaliyaan daryeelka xayawaanka la nool waxa aanu fulinaa bishiiba mar in iskuulada ku yaala degmada Burco iyo nawaaxigeeda aanu ka wacyigelino ardayda waliba khaasatan kuwa primary-ga ilaalinta daryeelka xayawaanka Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable Burco.